bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal halkani waa channelka wararka dunida qodobada wararka xiisaha leh ee aan xilliga kan idin hayna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo warbaahinta madaxa banaan ku eedeysay in heshiisyo ay kula jiraan ururka al-shabaab waan idin soo gudbin doonaa eedeynta dowladda u jeedisay warbaahinta madaxa banaan midowga Yurub oo ka careysiiyay ciidanka Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya muxuu tallaabo u qaaday ilaa iyo haatan midowga Yurub waan idin haynaa faahfaahin ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab iyo ilaaladiisa oo howlgal lagu dilay halkee ayuu ka dhacay howlgalkaasi warka ayaad ku daawan doontaan Saciid Dani oo magacaabay xilal sarsare imise ay gaarayaan xilalka cusub oo magacaabay Saciid Dani warka ayaan idinku haynaa al-shabaab oo war ka soo saartay doontii la degtay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo taliyahooda maxay ka yiraahdeen al-shabaab waan idin haynaa qodobadaasi ayaad warka ku daawan doontaan biidnillaahi kariim channelka subscribe idin hada daawadayaal si aad u heshaan muuqaaladeena xiga haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo aan caadi ahayn iyadoo ku eedeysay warbaahinta madaxa banaan inay heshiis kula jiraan ururka al-shabaab warkan ayaa waxa sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka qayb galay shir ku saabsan badqabka saxafiga oo ka socda magaalada Muqdisho halkaas oo si kulul uu eedan ugu jeediyay wasiirku warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgala gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho wasiir Maareeye ayaa warbaahinta madaxa banaan dhamaantood si wada jir ah ugu eedeeyay in ay heshiis kula jiraan al-shabaab isla markaana ay dhiirigelin u sameeyaan al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay Maareeye muusan sheegin wax cadeemo u ah oo ku saabsan eedeynta uu u jeediyay warbaahinta madaxa banaan sidoo kale wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in ay dowladdu ka go'an tahay in ay soo saarto go'aano midaysan oo ku saabsan baahinta wararka al-shabaab laakiin ma uusan faahfaahin arintaasi dhanka kale qaar ka mid ah madaxda warbaahinta ee ka qayb galay shirka ayaa su'aal ka weydiiyay wasiir Maareeye arinkaasi wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa warbaahinta u soo jeediyay inaysan buunbuunin qasaaraha weerarada al-shabaab ay geystaan hadalka wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya lagu eedeynayay inay caburinayso warbaahinta madaxa banaan ee magaalada Muqdisho gafka wasiir Maareeye ee saxaafadda ayaa imaanaya iyadoo oo in ka badan 20 wariye ay ku maqan yihiin gacanta al-shabaab loona dilay inay runta ka sheegaan dhibaatooyinka ka dhaca gudaha dalka lama oga duruufaha ku kalifay eedeynta uusan u meeldeynin ee wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ee haatan uu kala dhacay warbaahinta madaxa banaan muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si xumeeysay saxaafadda madaxa banaan xiriirkeeda waxaana ugu dambeysay iyadoo warbaahinta madaxa banaan loo diiday ka qaybgalka kulamada ay yeelanayaan xildhibaanada golaha shacabka kuwaasi oo dhawaan fasax ka soo laabtay midowga Yurub ayaa mar kale dib u dhigay magdhow la siinayo ciidamada Kenya ay qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya midowga Yurub iyo deeq-bixiyaasha kale ayaa dib u dhigay magdhowga ciidamada Kenya muddo 3 bilood ah kuwaasi oo dagaal kula jira ururka al-shabaab lacagtan ay dib u dhigtay midowga Yurub iyo deeq-bixiyaasha kale ayaa la sheegay in dowladda Kenya codsanaysay ilaa iyo bishii July sida laga soo xigtay hanti-dhowraha guud ee dalka Kenya lacagtan oo magdhow ahaan loo siinayo dowladda Kenya ayaa ah waxyeelada ciidamada Kenya ka soo gaartay dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ee ka socda gudaha dalka Soomaaliya lacagtan ayaa gaaraysa ilaa iyo $48,000 waana qasaarihii ciidamada Kenya ka soo gaaray dagaalka ay kula jiraan al-shabaab muddada 5 sano ahayd oo ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya midowga Yurub ayaa horay ugu shakiyay tirada ay dowladda Kenya sheegatay in ay kaga dhinteen howlgalka AMISOM ee ka socda gudaha Soomaaliya waana sababta ugu weyn ee keentay in dib loo dhigo markasta lacagtaasi ee magdhowga la siinayo Kenya ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu sheegaa ilaa iyo 4,000 oo askari oo intooda badan ay ku sugan yihiin deegaanada maamulka Jubbaland 28 wadan ee midowga Yurub oo ah kuwa ugu badan ee lacagaha ugu deeqa AMISOM iyada oo loo marayo xarunta nabadda Afrika ayaa bishii Abriil balan qaaday inay sii wadi doonto taageerida barnaamijka
howlgalka iyo howlaha sanadka maaliyadeed ee 2019 ilaa 2020. miisaaniyadda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay hoos u dhacdo sanadaha soo socda iyadoo si tartiib ah ciidanka AMISOM laga saarayo gudaha Soomaaliya. ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa bishii mushaar ahaan loo siiyaa ilaa iyo $1,820 waxayna dowladahooda ka jartaan lacag gaaraysa $200 taasoo ka dhigan in askari kasta uu helo lacag gaaraysa $800. ciidamada Soomaaliya ayaa la filayaa in ay la wareegaan guud ahaan amniga Soomaaliya maadaama AMISOM ay dalka ka bixi doonaan waqtiyada soo aadan. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ku dileen gudoomiye gobol oo ka tirsan Al-Shabaab iyo ilaaladiisa. howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Cali Folleer oo hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. howlgalka ayaa waxa la sheegay in ay ciidamadu ku dileen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab iyo sarkaal sare Al-Shabaab ah waxaana uu ka dhacay deegaanka Cali Folleer ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo weerar ay ku qaadeen ciidanka. kabtan Cali Yuusuf Macalin oo ah taliyaha ururka 65aad guutada 4aad qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in howlgalkaasi uu dhacay saacadii la soo dhaafay. waxa uu sheegay inay dileen gudoomiyihii deegaankaas u qaabilsanaa Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Shariif Maxamuud Abuukar iyo dagaalyahano kale. taliyaha ayaa sheegay in askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka uu si gaar ah u fuliyay howlgalkaasi kadib markii uu weerar ku qaaday saldhigga deegaankaas ay ku leeyihiin Al-Shabaab. ilaa hadda ma jirto ila ka madax banaan taliyaha oo xaqiijinaya in la dilay gudoomiyihii Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe. maalmihii dambe ciidamada dowladda ayaa waday howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab kuwaasi oo ka dhacayay badi deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay gudoomiyaasha gobolada Bari iyo Gardafuul oo ka tirsan Puntland. gudoomiyaha gobolka Bari ayuu u magacaabay Saciid Dani Cabdisamed Yuusuf Maxamed halka gudoomiyaha gobolka Gardafuul loo magacaabay Muuse Saalax Guuleed. gudoomiyaashan ayaa lagu magacaabay xeer madaxweyne oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland. wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland ayaa lagu sheegay in uu tixgelinayo soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland sidoo kalena uu eegay aqoonta way aragnimada ay leeyihiin shakhsiyaadkaasi. Saciid Dani ayaa isbedel ku sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay xilalka maamulkaasi. Al-Shabaab ayaa war ka soo saaray dowlad degtay ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo ka tirsan guutada 14 Oktoobar doontii ay saarnaayeen ay kula degtay nawaaxiga magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. ciidamadaas ayaa badankooda la badbaadiyay halka ilaa 3 kale badda lagu waayay. Al-Shabaab ayaa waxay sheegeen in iyagu ay ku qaadeen weerar badgal ah ciidankaasi taasi oo keentay in doontu ay degto. waxaana ay sheegeen Al-Shabaab in ay khasaare gaarsiiyeen ciidankaasi waa sida ay hadalka u dhigeen. ururka Al-Shabaab maysan shaacinin khasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarkaasi. warka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa intaasi ku daraya in ay furteen hub ay lahaayeen ciidanka. Al-Shabaab sidoo kale waxay sheegeen in doontaasi ay ka baxday xeebta jasiire ee magaalada Muqdisho xogteedina ay hayeen taasi oo u sahashay inay weeraraan waa sida ay hadalka u dhigeen. ma jirto wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Shabeellada Hoose oo ku aadan ka jawaab celidda hadalkan ka soo yeeray Al-Shabaab ee ah in ay weerareen doontii la degtay ciidanka dowladda Soomaaliya. warkii oo aad kala socoteen channelka wararka dunida saaxiibada qiimaha naga mudan xiliga kan waa naga intaa daawashada wacan ee warka waad ku mahadsantihiin. nabadgelyo.